saylada xoolaha lagu kala iibsado ee magaalada Naceelbo ayaa maanta waxaan kula kulmay bulshada fara badan oo markaas iibsanaysa neefkii ay maalinta bari ay ciid al-adxada ay ku xiyeysan lahaayeen waxayna markaas ay feel ugu jireen maanta saylada oo mashquul ah xoolaha faraha badan ee la soo dhoobay oo lagu talagalay inay bulshadu ay kaga qayb qaato ulxiyada waxaana markaas wax ka weydiiyay dilaalka magaalada Naceelbo aadan xasan cali xasan oo ah dilaalka saylada xoolaha lagu kala iibsado ka iibiya ayaan weydiiyay neefka xoolaha gaar ahaan waranka waaweyn inta ay maanta marayaan ee lagu kala iibsanayo saylada xoolaha lagu kala iibsado ee magaalada Naceelbo sidoo kale ayana waxaan wax ka weydiiyay bulshadii markaas keentay xoolaha magaaladani saylada Naceelbo u soo iibgasatay ayaa iga waramay neefkii ay soo kaxaysteen inta laga siiyay maanta qiimaha uu ka joogo saylada xoolaha ee magaalada Naceelbo maraya kulli ariga lamarwanka oo jarka loo yaqaan 120 buu hadda Naceelbo ka maray neefka hooseeya 75 intaas marayaan bulshada soo qaadanaysa waa qaadanaysa bulshada intuu dadkii jeebkiisa hadda ay yartahay laakiin dad kooban baa qaadanaya jamaacaha loo qaadan maayo wuuna badan yahay waxaanu joognaa sayladii Naceelbo oo lagu kala iibsanayo ulxiyadii barakaysnayd oo ciidka barakaysan loo iibsanayo insha Allah barwaaqo iyo nabcada iyo waxaas la isugu keenay halka ka muuqda oo aad aragtaan ciid mubaarak jooga xoolaha ulxiyada neefku wuxuu joogaa 130 120 meelahaas u maraya aduu maanta ma xoolaad keentay xoolaad marka arigi milyan laga iibsaday arigi waa la iibsaday waxna waa joogaan nino hadda loo soo socdo dadku waa kala qaybsaday arigihii baa la kala qaybsanayaa oo nin walba calaamad ku kala dhigay bismillaahi rahmaani rahiim nanu hadda soo qaxay laakiin si la sheegayo in aad waddankana waa garan kartaa laba sano amaana soo qabtay badanna aan horin aad u qaaliyiin wasal alxamdulilah rabbil caalamiin qayb iibsanaysay qayb aan iibsanayn waan macday barwaaqada saaka ma neef baad iibsatay ulxiyaa anigu kolley haddaan soo qaxay haddaan sayladaydi dad fara badan oo iibsaday waan waraystay marka waa nimcada iyo barwaaqada alxamdulilah rabbil caalamiin hooyin baa ilaahay shubay kolley dadkuna nimba taagti horuna waa buuxaan waana joogaan waa kuwan adarkay qiimo fiican oo kala gadanaya ariga saakada iyo wixii ka horreeyay saaka qiimo badan ma lahayn اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم maanta oo ulxiyadii ay noo bilaawtay ilaahay waxa weeye wuxuu nagu nimciyey xoolihii ulxiyada oo la iibsanayo halkan markaan oo xoolahaas oo maasha Allah nimco ilaahay saaray ilaahay baan ugu shukrinaqaynaa rabbi subxaanahu wa ta'aala dadka xoolaha keenada ilaahay u barakayo waxay haystaan dadka magaalada ee iibsanayana iyana ay quraadkooda ulxiyada ilaahay u waafajiyo baa ilaahay ku jira insha Allah billahi ta'ala adigu maanta ma iibsanaysaa ulxiyada neefka ulxiyada anigu maanta hadii waan iibsaday shalay waan anigu iibsaday laakiin dadkan waxay u soo baxeen inay iibsadaan xoolaha ulxiyada maadaama ciidkii ulxiyada ugu soo markasta marka la gaaro ciidda ulxiyada ayaa waxaa mashquul aadan noqda saylada xoolaha lagu kala iibsado ee magaalada Naceelbo iyadoo bulshada magaalada Naceelbo ay haatan u diyaar garoobayso maalinta bari ee ciid al-adxada ee markaasi arkaanta weyn ee islaamka uu leeyahay Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Naceelbo ee gobolka Sanaag.